xabsiga dhexe ee xamar runtii xaaladda uu ku sugan yahay maanta xaalad lagu faano maaha waxa ka jira ciriiri oo isdulsaar oo dadkii tiradii loogu talagalay iyo tirada ku xiran ay kala duwan tahay waxa ka jira dhibaatooyin tahay in wax laga qabto xagga caafimaadka maxaabiista ah iyo ciidankaba waxa jira muxuu ahaa noloshooda oo ay tahay in wax laga bedelo waxa ka maqan waxyaabihii aan hadda ka hadlaynay oo dhan oo ahaa dhaqan celintii qaybtii dhaqan celinta oo dhan baa maqan oo ah dadkii inay helaan xirfado in la soo celiyo muxuu ahaa wixii wax lagu bari jiray oo dhan sida warshadihii muxuu ahaa kala duwanaa ee yaryara sida beerihii dhismayaashii muxuu ahaa dharturidii waxaa la ii sheegay oo warbixinta ku qaatay in qofka maxbuuska la siiyo maalintii 3 litir qaad biyo ah marka 3 litir qaadkaas biyaha ma ku weysaysanaya ma ku istijoonaya ma cabaya ma ku qubaysanaya يعني ما فنان بكو دقانيا يعني waa garan kartaan يعني cadaabta halkaas tacdiibka uu qofkaas muwaadinka uu ku jiray